السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guys kusoo dhawaada YouTube channel-kayga. magacaygu waa Aisha. YouTube channel-kayga waa Alicia's Family. haddii YouTube-kayga ku cusub tahay subscribe and like, sidoo kale hanaga ilooban share with your friends and family saa videogan u gaar dad badan insha Allah. So guys, videoga idin wada waxaa waaye video yacni maalmo badan iskugu jira, laakiin maanta waxaa idin wada inaan idin sheego ama idinka faa'iideeyo haddaad ku nooshahay wadanka Canada oo ani degmo aad joogtid oo gobol aad ka joogtid haystay ilmo yar oo ka yar ilaa iyo 3 sano 4 sano 5 sano ilaa intaasayda jiro oo haddana weli hadli karin oo hadalku culus yahay because haddii Soomaali nahay waxaan kula hadalnaa ilmaha laba luqadood which is Somali and English marmar iskugu darno marka cuniga confuse ku noqona luqadii mid yacni luqad yacni uu qabsado markaasayda way ku adkaane soo haddii cunig noocaas ilmo noocaas haysatid ama ilmahaaga luqada ku yar culus tahay oo haddana iskuulka bilaabi rabo kindergarten-ka waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo agensiyaal badan oo ka caawin kara waxyaalahaas oo tibiyaal badan oo aad ilmaha ka caawin kartid inuu asoo hadlayo luqadii fahmaayo oo iskuulka bilaabo sa xaalad kasta iskuulka wixii ka dhacad ka wareysan kartid communication fiican yeelan kartid adiga ilmahaaga tan koowaad ilmahaada ka caawin kartid inaad luqadiisa qabsado asagoo 2 sano jira ilaa 3 sano ilaa 4 sano yaan luqadiisa fiican ugu hadli karo fahmi kartid waxaa waaye koo cuniga inaad ka daysid screen time-ka waxaa waaye koo cuniga inaad yacni TV-ga badan uu daawanayo inaad ka joojisid the more TV-gaas cuniga ka joojisid the more waxaa waaye uu maskaxdiisa gareysmayso oo communication asaga iyo adiga yeelan kartid saa asaga communicationkiisa u badnaado hadalkiisa u badnaado kadibna uu hadaladiisa markaas soo bixin karo laakiin haddii cuniga TV badan daawanayo hooyadii iyo cunigii ilmihii ma yeelan karo communication sax ma yeelan karaan. Tip number 2 waxaa waaye inaa ilmaha geysid meelaha lagu caawiyo markaan ku leeyahay waxaa jira meelo badan oo free ah early on children first ilmahaaga waxay la kulmayeen consultation ay la kulmayeen dad waxay la kulmayeen khibradeysan oo soo bartay waxyaalahan ilmaha u baahan yihiin so waxay ka caawinayeen ani oo rabtid in ilmaha laga caawiyo haday speak therapy haday yihiin maxaa la yiraahdaa dhinaca dabeecadda haday tahay dhinaca hadalka haday yahay ka soo daahay dhinaca maxaa la lahaayay tarbiyada toiletka musqush haday tahay waxyaalo badan ay ka caawinayeen xitaa ayaga adi ahaan waalid ahaan waxay ku siinayeen saa ilmahaaga ula challenge garan lahayd yacni saa ilmaha ula qabsan lahayd because hadaa hooyooyin nahay Soomaali ah marka wadanka laga soo tagay iyo wadankan isku mid ma ahan waxyaalo badan oo ilmaha ka caawin kartid because meel walbo liimaad waxay leedahay dhaqan u gaar ah soo ilmahaaga saad ugu faa'iideysid waxyaalaha markaas iskuulka bilaabo waxa surprise wax cusub ula noqonin waa inaa adig ku dadaashid cunigaas saa foundation-kiisa u build garan lahayd ama u toosin lahayd ama ugu dhisa lahayd marka meelahaas aad geeyn kartaa early on camal wax walba description-ka ku soo qora aan had inta ka sheega rabo early on camal xitaa cuniga waa geeyn kartaa aad soo maalintii xigtay waxaa aadnay riverside-ka saa ilmaha oo banaanka ugu bixiyo yacni hadda samra lagu jiraa ay u arkaan meelaha cadceed u soo qaataan parking ku soo ciyaaraan ayaga xitaa exercise u tahay energy-ga ay hayaan say banaanka ugu soo bixiyaan laakiin haddaan gurigii samarka ilmaha la fadhino haddii ilmaha vacation geeni karin inaa gurigii la fadhiiso TV u saartid ama haddii summer class geen karin soo waa inaa ilmaha meelo badan oo waxaa jira free parking ay ku ciyaari karaan ay basketball ahaan ku ciyaari karaan ay iska badboodi yacni wixii rabaan ay ku suubin karaan way ordi karaan waxay tahay ayaga release u tahay energy-ga ay hayaan inay soo bixinayeen yacni excitement-na way tahay because waxyaalihii banaanadii wax walba soo arkayeen in the nursing way u tahay soo waxyaalahaas camal xitaa ilmaha waa ku caawina halkan ikraana joogto waxay iligeeda ka jabay soo marka ahaan waan bixiyaa banaankan geeyaa si ula soo qabsiyo u arkaan yacni hawada ay yacni vitamin D xitaa ma yaal meeshaan moogtahay cuntooyinka si vitamin D u soo qaataan cadceeda soo qaataan
so marka waxyaalahaas suubiya maalintii kale waxaa jiro sanad walba waxaa la magaalada aan degan waxaa lagu qabtaa waxa la yiraahdo Meet the Machines waxaa waaye ilmaha waxaa la baraa oo shaqooyinka laga qabta Canada oo dhan waxaa la hal meel la isugu imaana kadib ciyaalkii waxaa la tusaa inay wadankii waxaan ka jiraan yacni hadhow cunuga waxaa yeelan karaa hobby asiraad okay ani waxaan barana because wax walba machine kasto meeshaas yaalo ilmaha waa loo fasiraa waxay qabtaan waxay suubiyaan waa loo sheegaa soo cunugii hadhow waxay dhihi karaa markaas weynaado jaamacad ama college aadayo oo waxa saarawa inaan soo barto because practical ahaan oo ku soo arkay maxaa la yiraahdaa caadi uu soo arkay marka waxyaalahaas yaalo waxyaalo badan la keenaa mashiino badan la keenaa hadda ikraan camal halkan wuxuu ku suginaysaa kuwan ambulance dadku qaado sida dadka loo caawiyo markii ambulance la dhaxgaliyo sida dhiiga laga qaado sida temperature loo fiiriyo waxyaalaha haysta camal waxyaalahaas ay barayeen yani ay tusayeen practical ahaan I hope ina videogan jeclaateen videogan